بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى وحوغا كوبان بين كورن دونا كيفية استقبال رمضان. أما بشان رمضان يقفك مسلم كاسيد اللوغة باهيين وديار قروبه. حين كترنا شعبان أيام كدبنا إن شاء الله تعالى رمضان بين قارنا. رمضان وبال الصومه وبالقيام الليل لوكعه وبالنصوص تكسر ارتال عتق من النار. إن شهادة لها لقفك إن نارت إلهي كحريي وإن شركيس النار تابن دونين وبال داغ قفك مسلم كو برطية وحبحينته وبالقفك استو مسلمي المصالحة مع الله أو الرجوع إلى الله وربي يقول نقض سبحانه وتعالى. وابلو نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سدادتك اللو ترغيبين يلو علي سيني يا الله سبحانه وتعالى إن الباب دا جنة الله فره الباب دا النار تنا لحده وحيابها دتك عرقلة دي جنة اسكهر تاقه أما النار تكدر قيا كتخن تخينا وابالستي الشياطين تواوين وقوين يغنا إن لحده وبالروح لقفك مؤمن كاي طاهر نقطه آثارتي يذنوبتي والسيدية ما حنبار سنايا سنة كردنك سوداعي سينا ربي كدتشيو إذا وحي سويدين تلي مركاسين وقود ديار قروبينا حالينا قربا انت ugu badan dadku qolana deema ba oga Allah hanuuniye inta ogina waxa laga yaabaa inuu diyaar garowgoodu noqdo guriga raashin fiican in la dhigo shaqada inuu iska yareeyo hurdada iyo cunadaba inuu badsado oo waqtiga cunadu baynu badalaa halkii maalintii wax laga cuni jiray un baynu u raraynayno maxay habeenkii cunno markaad eegto guriga cunada la dhigo bisha kale iyo bisha ramadaan cunada la dhigo marar badan waxa badan maxay ramadaantii cunada aynu qaadano al-asluna maaha cunaynaynu diyaar garowno waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisan yihiinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro oo ah in caloosha la nasiyo oo cunadu markay yaraato waxay dhaahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumuumtii jidhkaaga ku jirta inuu safayn karo. waxa cunadu markay yaraato uu jidhku helayaa bay dhaahdaan renewal old cells kodham inay dhintaan jidhka bay dhaahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay wuu dilaa unugya cusub baa dhasha markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa. ولذلك بقى ما أنت ميزان كاردين ما كم بعد حنونه بدن بيكون دويان إلا أي حنونه سايكوتيكا كود دويان ما أنت الله استعماله ينقف لحي صدر مع الموضة ما وحكوا الدولة السومية اكتئابية دي حنونه ده قار كودين لقى دويه ما أنت ضد بدني وحي الصومانين أي شرق روح بدن يشان ضد قار وحي الصومانين وزنك يا ميزان كيسكير ريان dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab dawladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunada laga soomo idiraab iyadoo ah. laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asal ee uu sooma waxani waa tabac yani inaad caafimaad hesho ama inaad kan hesho maaha asalkii soonka. asalka soonku waa maxay؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بإلهي كو إيمانك لغا هلايو
soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinka horreeyayba loogu waajib yeelay cibaadaadka qaarkood waa qadiim mundu qidami zamaan intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira hayaakil alcibaada wa kayfiyatiha baa kala gedisnaatay مثلا صلاة وعبادة قديمة صومك وعبادة قديمة حجك وعبادة قديمة والغا يا بقاب كلو غدن يا من لو سمينين كلا قديسين يهين نبي كستا تشريعي لسوسي انه كقديسين لكن اصول العباده اركان الاسلام كلا يداين طبضا وعبادات قديمه وقران كوينات الماميه صومك الهي وحينا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صوم بليدكم واجب يالي sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horreeyay maxaa laynoogu waajib yeelay ma ciqaaba oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynaga maydhaya maya ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahay yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo soonkaba waxaa laydin faray in noloshu idin fududaata baa la leeyahay culaysna rabbi idinlama rabo idan soomka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo waxaa ilaahay ina farayaa sababtu waa maxay lacalakum tattaquun ina mansilatu taqwa gaadhaan aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacalakum tattaquun baa ilaahay yidhi wardadow rabbigiin caabuda idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horreeyayba maxaa u caabudaysaa lacalakum tattaquun kayta tattaquun haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaar garoobo munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimi dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayay oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsanaaya waktiguna wakti kulul buu ahaa oo waktigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan yani wakti samara xagaaya bay ahayd dabeetana bil wakti ku dhadhowna waa la lugeynaya xagaaga marka ragii daacadda ay ka ahaydna way u diyaar garoobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bisha siduu socon lahaa kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nabiga u yimi iyagoo ooyo la ilaahay rasuulkiisa wax nasaar ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulatoona ma haysano inaanu ka hadhnana ma rabnay waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacna nasaar qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay xagga kale marka laga eegana waa waqtiga timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu waqtigaasay u bislaataa marka nimankii munaafiqiinta iyagu marmarsiiyay sameeyana way hadheen ilaahay oo qadiyadooda ka waramaya baa wuxuu yidhi walow araadu alkhuruuja laa caddu lahu cudda baa ilaahay yidhi hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaar garoobi lahaayeen baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ee diyaar la-aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan haddaba soomku ayuha alaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso sida awgeed ayaa salafi lumma marka ramadaantu soo dhawaato waa ku farxi jireen desaan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta abaa ku soo socdee soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay 5 asaloo waaweyn buu leeyahay 5 asal maxaa ka mid ahaa الشهادة هي الصلاة هي الزكاة هي صوم هي حج إذن ركن كم مدى أركان الإسلام كي مركو صوص صعدة قف مؤمن كي ودي القروبية نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابة دي سووا بشارين شري حديث الصحيح السنن النساء كي لوح النبي قولي أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم نبي صلى الصحابة الله الله رضوان الله عليهم أي نبي صلوات الله وسلامه وحليه ورياده رمضان بايدين تيمو نبي قولي
وبالبركة سنة رمضان وبركة سنتي دمانتي إلهي وحيد واجب يا ليبون بيقول لي صون أبابد السماء أما البابد الجنة والله فراه أبواب السماء والله فراه ماشينا لا أقبليا أبواب الجنة والله فراه يدل لي كل الرجالين أبواب الجحيم أنا أما جهنم أنا والله حدا شيطان مدى وين إذا كين فوقينا يردنا نواد كقبنا يا بشاس بالليل شياطين توا إجازة كومبلسري ليف بالاسيا كوا وين ردن واحدين بشا ثانية هبين بانا كتشربو النبي يري كم بلاد كخير بدن كم بلاد عبادات وينتي ودوري سيدات صنادات هبين كخير بدن باكره وبشان كميدا من حرم قفك لقى منعيه هلي ويا خير كذا رمضان تامه هبين كخير كذا قفك ويا فقد حرم كاس خير هلي ما يبالي هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو بشارين يا صحابة يبو بشارين يا وحنو بشارين يا وقت هذا الله مدهينين وصاص عضو نمك الدجارته السيسن الكوحيبية وقت كاستقلب كي سيبيان مثلا مركي عيد الربانين وحيبيان عيد قال هذا ما عيد مسلمان نقطه عيد waxa socona iyo dhan bay soo diyaariyaan waxaan u arkaa waqti yar oo aan badnayn oo aad loo faa'iidi kara inuu jiro faa'iidooyin badan la helayo qofka muslimka ee marka bisha tani waa bilaad khayr badan waa bil qofka muslimkii مع الله جملة وكل باع مشترينيه وبلا دالين كرتو تدوري سيدات سندات بد هبين دالين كرتا دوري سيدات سندات عمري وحاد عبادة الصبين كاري لهاي أيها هبين كم إذا رمضان تات صبين كريسا إذا وبلا أن وقتك أنت سكالك ولا مدهين سادر هذا قفك مسلم كيو ديار قروبية بشوين إذا دو حقوت المامية إن لبن نينو الصحابة كم إذا هي سوهي جرودي دبيتنا طلحة بن عبيد الله وصحابي اللي ورنشري بي لدقه لبضن وي جهاد قالين مركا اي جهاد قالين ايام ميدي شهيدنا ما قاطي متكي كاله ولا من انه صو اسلام واسلام نمدودو في عناتي والنبي قال دغال قالي مid با دغالدي شهيد كو نقدي كي كلنا سنة كلوسي نولاد بيشي كو حكتين رمضان نواد شوقوا دبتنا سعادي وقيريود طلحة بن عبيد الله صحابي اللي ورنشري ايها وحو يري الريان اركي الرياد السديدة قد تكون حقا وقد تكون خزعبلات يعني النبي عليه الصلاة والسلام حقوت المامية النبدي وحكا هاري وحكا ميدا محي الرؤية الصالحة مركا الرياض ودبنا والنقطة باطل يوسكا دبنا والنقطة سحابة نقول رياضي وحكو الرياضي إيادو جندي أيجليان دبت أنا صدق حدا يضع محيم بوليا أنا جاي لبدي نينا كله لبدي نينا كله كيد دم بعد دنتي يعني جهات ككود دمانين هي ليدي سوغل كيبا هله الرئيسية هرقالي دبتنا كي شهيد كهابا كذا بقالي أنا أسير قالوا هذه أولي ما يقاري وقت يجيبها ليدي بويدي مركا وصوب راروجي رياضي بافافتي نبي قال الله شيء نبي عليه الصلاة والسلام حكوا محاولة يا بيسان وإلى إلهي رسول كيسيو لبضا ننكي أنو سلاهين دوا الددال بدن شهيدو بي كي كلا شنادا كهر قالي تبتنا نبي حكوا أليس قد مكث هذا بعده بسنة وكان ميانو سنة كان لول دنبين من نبي كويري مركز الله يدي ها وكان لول دنبي وميانو رمضان تي دنبي سو قاعدين من نبي كويري هاي وسو قاعدين بالليل وسو مسومين ومصلادين ومساجد كم كمتو كان إن سنة دون نبي كويري عليه الصلاة والسلام مركز الله يدي ها فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض من نبي كويري حديث كان ابن ماجه سور إنه علماء الصحيح قلت الماما يعني وحنا بقول أي
labadooda ajarkooda inta u dhaxaysa cirkiya dhulka inta u dhaxaysa in leeg baa u dhaxaysa yani ninkii shahiidnimada qaatay sanadkii hore kani muxuu kaga badiyey acmaashii uu samaystay sanadkii uu noolaa ay ka mid ahayd uu nabigu leeyahy warninku miyaanu ramadaan soo gaadhin aanu kaasi sii maqnaa soo kani ma joogin buu nabigu leeyahy oo ramadaan taa ma tukanayno ma soomayno waa kan sida awgeed axaadiis badan baynu nabiga ka haynaa uu nabigu leeyahy qofka ramadaan soma iimaanan waxtisaaban isagoo iimaan iyo ixtisaab yacni mu'minan billaahi si dhaba u rumaysan wa mukhlisan ku dhinta camalkaa soonkaa sameeya gufira lahu maa taqadama min denbi dembigiisa horaa la dhaafaa buu nabigu yihi waa ninka sooma waman qaama ramadaan buu nabigu yihi ninka habeenka ramadaan istaagana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi haddana nebigu wuxuu yihi waman qaama leylata alqadr habeenkaa gaarkaa ninka isa sii taaga iimaanan waxtisaabanna isna dembigiisii hore waa la dhaafaa taa macnaheed waxa weeyaan ayuha alaxiba ramadaan waa fursa waa tijaara raabixa bilaa shak waa tijaara ilaahay lala baaca mushtaraynayo oo maxaa lagula baaca mushtaraynaya ilaahay biliimaani walacmaali saalixa iimaan iyo camal suuban waa fursad qof kasta oo muslim oo dembi ku raraa uu dembiga iska rogi karo waa misfaa yacni waa xamaamu ruuxiya waa meel lagu qubaysto lagaga qubaysto wixii dembi ku soo galay imise ishaadu wax xun aragtay imise dhegtaadu wax xun maqashay imise carabkaagu wax xun ku hadlay imise xisaabi uun waxaasoo dhan qaabkii la ysaga maydhi lahaa weeyaan sida awgeed buu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maalin buu mimbarka fuulay isagoo leh aamiin 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 saxaabadii waxay dhahen maa kunta tasnacu haada ilaahay rasuulkiisiiyo saan maad yeeli jirine maanta maxaa soo kordhay mimbarka markaad fuulayso si caadi umaad u fuuli jirtay laakiin intaad xabad fuushay inaad aamiin tidhaahdo kala fu aamiin oo aamiin tidhaahdo maxaa isbedelay bay nebiga weydiinayaan calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi jibriil baa ducaynayay ama saan idhaahna habaartamayay aniguna aamiintaan u lahaa buu nebigu leeyahy nebi maxamed iyo jibriil maxay isugu tageen ee midna uu ducaynaya midna aamiin u leeyahay nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam jibriil baa wuxuu yidhi ragima anfu cabdin dakhala calayhi ramadaanu falam yugfar lah ragima anf waa eray carabta ku isticmaasho sankiisaa boodhoobaya ala soomaalida ku tara afka u dhac afka ha u dhaca buu leeyahay ninkay ramadaan u soo gashay ee haddana dembigiisa la dhaafi waaye afka ha u dhaca buu jibriil leeyahy carabtu waa sanka ha u dhace markaasuu nebi maxamedna leeyahay aamiin jibriil baa haddana wuxuu yidhi afka ha u dhaco ninka maxay agtiisa laygu sheego nebi maxamed oo agtaada inta lagu sheego calayhi salaatu wasalaam kugu saliyi waaya nebiga ku saliya dabeetana nebigu aamiin buu ku yidhi markaasuu haddana wuxuu leey ragima anfu cabdin adraka waalidayhi aw axadahuma afka ha u dhaco qofka labadiisii waalid soo gaadhay ama mid iyagoo yacni gaboobay falam yudkhilhu ljanna falam yudkhil iljanna oo janno ku geli waayey labadiisii waalid samafalka iyo axsaanku uu samaynayo kaasina afka ha u dhaco xadiidkani wuxuu tilmaamayaa 3 camal oo janno lagu galo midi waa waalidka iyo ixsaanfalkooda midna waa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam ka kalena waa ramadaan nimay u soo gashay oo haddana dembigiisa la dhaafi waayey yani 3 qof ee la habaarayo midi waa ninkii nebi maxamed ku salli waayey midna waa ninkii waalidkii u samafali waayey ka saddexaad waa maxay qof ramadaanna ay u soo gashay ramadaanna ka dhammaatay isagoo aan weli dembigiisa la dhaafin yani ma istafaada min ramadaani shay-a ramadaan aan waxba ka faa'iidin yani ninka ramadaan wax ka faa'iidi waayey man xurima khayruha faqad xurim buu nebigu leeyahy leylat lqadri iyo wixii ninka taa khayrkeeda laga xaaraam yeelay
خير كيدو واي كاسي خير هلي ما يبو النبي قولي عليه الصلاة والسلام سيدا أوجد أيها الأحبة مركا وحلين وحين هو باهنا إن رمضان تودي أرجرونه وودي أرجرونه سيدي كو إلى هيدا بقى ولا في لها النبي عليه الصلاة والسلام وحط المامية حديث كمسلم كيالا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث كان يوحي هي صلاتها شنطة هي جمعة إلا جمعة هي رمضان إلى رمضان مدوى لبا وحيد هي مكفرات لما بينهن لبدا دحدو دوحي أهامدا بقوضة لغضافه إذا اجتنبت الكبائر هديد دنبية دواوين لقفوق هذا يعني واحد شيره horta saqaa'irtu waa dunuubta ugu badan waayo marar badan waxaa laga yaabaa qofku hadduu qof noolba yahay de inuu kabiiradu ku dhaco xasuusto ilaahay uga toobad keeno saqaa'irta laakiin dadku waa iska wadaan saqaa'irtu waa iska socotaa markaad masaajidka ka baxdo imisaad naag qaawan aragtaa imisaad wax kaa mamnuuca maqashaa imisaad tv aragtaa imisaad wuxuun ku hadashaa imisaad halkeer fadhi ku dirarka tagtaa oo ama adigu aad wadaa ama iyagu ay wadaano aadna dhegaysanaysaa ila waa isla meeshuune yani haddii saqaa'ir la ururinayo waa haddaynu kabaa'irta kaba indhaqarsanno waa rarannay waagu markuu bariyey ilaa iyo gabalku intuu ka dhacayay intaad ka seexanaysay dee intaa ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay intee khayr ahayd uun xisaabi saaka markaad soo kacday ilaa iyo caawa intaad seexanayso ama waad hadlaysay ama waad dhegaysanaysay mid hadlaya intee baa khayr ahayd uun isweydii markaa yani waxaynu garan karnaa saqaa'irta maalin walba ina fuulaysa intay taagantay dhowr shay oo saqaa'irta lagu maydhaa baa laynoo sheegay waxaa la yidhi salaad ilaa salaadi way maydhaa salaada aad jamaca la tukato ninkii yidhi gabadh baa nunkaday ee nebigu ku celceliyey muxuu nebigu ku yidhi war mead nala joogin markaanu salaada tukanaynay ma waa idinla tukaday buu ku yidhi ina alxasanaat yudhibna sayi'aat buu nebigu ku yidhi yacni salaad ilaa salaad haddaad salaadaha jamaca ilaaliso saqaa'irta u dhaxaysa way tirtirtaa jimce ilaa jimce ramadaan ilaa ramadaan waxaa laga yaabaa inaad su-aal isweydiiso oo haddii salaadan ilaa salaadan shantii salaadood maanta hadday tirtireen jimce ilaa jimca maxaa la tirtirayaa ilaan maalin kasta shan baad soo tukatay haddii jimce ilaa jimca uu tirtiray maxaa ramadaan ilaa ramadaanta la tirtirayaa acmaashu kuwa saalixa ah acmaasha saalixaadka ah iyo acmaasha madmuumkaahiba aahaarteeda waxaa ka dhalanaya وبحسب عمل العامل وبحسب استيفاء شروط القبول وحياه بدل ما يكون حرنتي تصالح مثلا النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث كحسن كعلماء كتل المامان أبو داود النسائي ابن حباني ركبة يوريني يعني إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته midkiin baa tukada oo aan salaadiisa loo qorin buu nebigu yidhi 10 meelood meel mooyaane dabeetana nebigu wuu sii waday tusucaha thumunaha khumusaha sudus sii waday nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa nisfaha uu ka gaadhsiinay midkiin baa tukado salaadiisa leh 10 meelood oo meel ahaan 10% mid kale tukado salaadiisa leh maxay 10 meelood marka loo qaybiyo yani tusc mid baa le thumun 1/8 mid baa le maxay sudus 1/6 mid baa le khumus 1/5 mid baa le baa la yidhi rubuc quarter mid baa thuluth leh 1/3 ayuu salaadiisa leeyahay mid baa nisf leh nus oo waa maxay dee salaada waxaad leedahay
intaad ikhlaas tahay soo jeedo haddaa qalbigaaguba maqan yahay iska lahayd waday iyo ninkii salaadiisa xaadirka ahaayee wuxuu akhrinaya garanaya u fiirsanaya soo jeeday dee isku ajar maaha labaduba salaad bay tukadeen laakiin salaadoodu waa maxay isku ajar maaha walidalik nabigu calayhi salaatu wasalaam ama qur-aankaba ilaahay wuxuu leeyahy waaqimi الصalaata طarafiya الnahaari wazulfan min alleyl ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidakiriin baa ilaahay yidhi salaada oog labada dacalee maalintii iyo habeenkii wax ka mid a ina alxasanaati yudhibna asayi'aat wanaagyadu ama xasanaadku waxay tirtiraan buu nebigu ayuu qur-aanku leeyahay sayi-aadka dalika dikra lidakiriin laakiin salaadaha iyo cibaadaadka iyo soonka iyo waxaynu samaynaynaa waxay ku xidhan yihiin wakhtiga la sameeyo kow oo awqaad waa kala fadli badantay makaankaa kala fadli badan meesha lagu sameeyo maalan salaadaad kacbada ku tukato iyo taad gurigaaga ku tukato hadday isuma dhowa ama masaajidkii nebi maxamed salaadaad ku tukato iyo taad meel kale ku tukataa dee isuma dhowa 1000 salaadood iyo 100 kun oo salaadood baa udhaxaysa waxaa la mid ah waqtiga salaada waqtigu markay soo gashay jamaca ilaalisay tukatay aad hadhow tukatay dee isku mid maaha salaada jamaca ku tukatay aad munfaridka tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah xuduur alqalb sidaad xaadirka u ahayd salaadaad adoo maqan tukato ghaafila iyo adigoo mutayaqido xaadira salaadaad tukatay isku mid maaha waxaa la mid ah ikhlaaska مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حديث وحو تلمامه يمد آخر الذنوب بدن انت الله قبصده للي وح عمل ما قرنيسا ومركز دنبه لا إله وأنا وح عمل وكلو ديراد وأسميه قرن ما يو خيره وبطاقة لكين أيه بطاقة محاوق قرن توحيد لا إله إلا الله دي سباق قرن محمد رسول الله لكن ولا إله إلا الله مخلصا من قلبي ولا إله إلا الله نوع قارئة تاسا كفد الله صار يا دبتنا تاسا كعصلان يسوي كلا أردن وهدادتك لا إله إلا الله يري يرد من نار وحبك قلي ما ينمياه ما هو قليا قار بدون أصحاب لا إله إلا الله يبقى نار تقليا وقار شفاعة النبي محمد لك قصة صارية وقار شفاعة ملائكة لك قصة صارية وأخيرا إلهي سبحانه وتعالى وحكو هركة صارية طبعا وحي توحيد كل انت نار كوار مايان لكن قلي مايان لما ورن كرو نار كوار مايان لكن قاربا جرى التوحيد انت كل انت انا نار تبقلين توحيد كيس وحكى لو دانو كعلسي هاي وحيلين واعمال القلوب باكل عسل ليس وحكا ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام وحينات الماما يا سلاده انو انان السنين وحكالات الماما من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن ثيابه ومص من طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة ninka maydha maalinta jimce ee dharka waxa uu fiican oo haysto soo xidha ila waa maalin ciideed jimca muslimku yahay ee dabeetana udug hadii uu haysto soo marsada ee dabeetana jimca yimaada ee aan dadka ka dul taltallaabsanin buu nabigu yiri falam yatakhatta a'naq an-nas dadka aan jiirjiidin ee halkii ugu banaane uu helo fariista oo tukada wixii alla u qoray inuu tukado dabeetana marka imaamku yimaado aamusa oo dhageysta كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها بنبوي تاني waxay kafaara u tahay jumcadan iyo jumcadii ka horeysay wixii u dhaxeeyay idan jumcada waynu wadanimi laakiin isku mid ma ha jumcadeenu mid baa goor hore yimi oo la mid ah nabigu yiri sidii nin neef gala sadaqadaystay ka ku xiga saacada ka dambaystaba nin neef saaca sadaqadaystay neef lo ah ka ku xiga neef ariya ka ku xiga digaagad ka ku xiga maxaa la yiraahdaa xabad beeda ninka xabad beeda sadaqadaystay iyo ninka neef gala sadaqadaystay ma isku meel ba salaadood dabeetana nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salaatu wasalaam haddaba إلهي وقرآن كله إنما يتقبل الله من المتقين
إلهي وحا عماشا كأقبل دتك متقين تا قف عمل بو متقي كيه معناه إذا ماها قف وضا التقي يبا شريه مد وذا فاسدة وحلقة يبا عمل كان يسوى كاحم هذا صلاة هورية وكاحم هذا صلاة هذا ضمبين هذا دقو حاضر وقلبك قسوتش هذا في عنتو كتير إذا عملك أنت تسوتش دبا دا أجر كيس وين ليه أنت صا أنت الذنوب تمسح السبع على بعض ولا marka salaadaha gay hadii la isu geeyay wada dhameyn waayeen oo jimcadaadii marka lagu daro ay hadana wada meeydi kari weyday ramadaan taadu haday fiicnaato iyada meeyaysa wixii inta hore u taag weyday walidalik hadii koob iyo 10 bilood salaad khalkhalaynu soo tukanaynay ama jimcee imaamku taaganuna aynu soo fuulaynay soo galaynay masaajidka aan isku dayno bisha tan inay noqoto bishii aynu tirtiri lahayn wixii amal inaga tagayo dhan wixii dhunuub inaga dhacday horo dhan bilaynu tirtiro waxaynu ramadaan qabana laba shay baa ugu fiican mid waa inaynu dambiga iska maydhno midna waa inaynu darajaadka kor u korro ajarka inuu shaqaysanayna inaynu badino mustaqbalka u dhigano dambigii hore inaad iska maydhido nadiifisid ramadaan waad awoodi kartaa inaad ajarka biirisana markaad intaa maydhana waad ziyaada ani dhunuubaad shaqaysato na waad awoodi karaysaa si awgeed baa manqabada ramadaan ajarada ilaahay waxa kamid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiith alqudsiga wuxuu ku sheegay ilaahay baa wuxuu yiri kullu amal ibn aadam lah reer nabi aadam oo dhamay amalka shaqaystaan iyaga leh illa siyaam mooyaane aw illa sawm soonka mooyaane fa innahu li wa ana ajzi bihi isaga ana iskale oo ka abaal marinaya baa ilaahay yiri tabeetana xadiiska wuxuu sii tilmaamaya wasiyaamu junnatun soonku waa gaashaan dhunuubta lagaga gaashaanto naar lagaga gaashaanto fa idha kana yawmu sawmi ahadikum midkiin haduu maalintiisi soonta joogo فلا يرفث يومئذ ولا يسخط يوم أنت أفحمك وهدي أو يقيلني هدي عيدك عيدنا أبو النبي يقول أما سكول الدجال لنتنا أجر كاجا هيسكد منه وحتى هذا إني امرؤ صائم وروى صومنا يكون أفك وعايا أما كول الدجال أما إني امرؤ صائم كله والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه حديث كان انت ينوص عنان قدن لي وحويا إلهي باوح لي سبحانه وتعالى بن آدم كو عمل كيس دمانتي سقا اسكال صون تموياني صون تسي أني قالوا كأبا المرينية حديث كمعني سوية سي الله فصيرية فصير هذا تربى علماء الشيعة لكن علماء بربا واحد هذا لبدا قول سفيان بن عيينة بوجود الدو ولبا لبدا قول مدبا نصوص تسير رجحيسة الإمام سفيان بن العيينة محدث كيل لورنشر الشيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه سفيان بن عيينة بوحوليه هي لبا قول لكن كصحة هذا ينسكق هذا النوع حويان صونكو أعماشك الأردن بني آدم كاسكاله وحانا إلى محي أجر محدود بيلادي أجر حدا يسمى أعماشك الأردن ميلادي صونك مو يعني أحاديث بانا ساعة دينسا الأصل أعماش حير با إلى هي ولقياه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها قفك حسنات سميسته وانو طبعا لابا يابا إلى هيري حسنات كستات سميسته طبعا لابكت أي إلى كوسينيا لكن انت سواء انت حق الله كوسي لكن هدي إخلاص كاغو بطو مال في عليك وقول عضو حسنات كقاركود بكبطو قاعدة إلى 700 تضواب بقول أو تشير إلى قول الله طبعا لابكو أي مسا هدي الشيلين لبا حدو الشيلين كلا لو قدر وامسا 100% سما طبعا لابكم مركا 1000% أصل إلهي وغني
asal wuxuu inooga dhigay xasanadeenu 1000% baa u asala waa minimumka abtu waxay soconaysaa maxay 700 ضعف يعني 700,000% in lagu dalaco shilinkaagii 700,000 oo shilin inuu gaadhi karo kow liman yasha ayuu ilaahay u dalacaa wallahu waasicun caliimna weeyaan haddaba soontu waxay culimmadu leeyihin xeerkaa way ka baxsantay soonku xeerkaa way ka baxday وحديث صحيح وحليه كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عمل كستوقف وسما استوى الله بيا طبعا شير إلا إيا تضوب غلو شير من فضل الله سبحانه وتعالى صونك مو يعني بالي أما صونك isaga ana iskale baa ilaahay yidho isagu waa gaar isagu markaa culimadu waxay leeyihiin ana leeda idaafadatani waxay macnaynaysaa bay culimadu leeyihiin sirta ah inaanu iyadu ku jirin waxyaabahan uu xadaysan yahay ajarkooda ee ajarkeeda ilaahay uma garanaya walidalik ba mufassiriinta qaarkood waxay ku fasiraan aayadan quraanka ilaahay leeyahay inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab shahru sabrina waa la yiraahdaa شهر الصوم ولا هذا ودي صبر لما أنت بوقف كل إيمانية إنه عن المعاصي وعن الشهوات كصومه إنه على الطاعات كصبره هي وحي مشاكل يا آلام يا مقادير سوى قاعدين كصبره هذا بقى بشتني وبل أن ربنا لبا وح إن نهله كو إن لهي دم بقى قد عفه هذا ما هي إنه يد الدم بكررسانه dadka qaar baa bishatan musalsalaad iyo balaa bishii uu dambiga hore iska rogi lahaa mid cusub bilaaba ma aha bil uu qofka bini aadamka ay kaslaan noqdo bilaad marna hurudow marna ma aha waa bil qofka muslimka ay ijtihaad ku jiro waa qofka muslimka ay waa bil uu dadaalkiisa xadkii kama dambaystaha isku dayay inuu gaarsiiyo muxuu rabaa in ilaahay dambiga ka maydho wuxuu rabaa ajar inta ugu badan la inuu shaqaysto wuxuu rabaa inuu ku biiro min utaqaa'ih kuwa ilaahay naarta ka xoreynaya habeen walba naarta badh baa laga xoreeyaa bishatan oo dhan wadaaka fi kulli layla bu nabigu yidhi habeen walba ummadda muslimka qayb ka mid ah naarta laga xoreeya inaad u dadaasho sidii aad ugu biiri lahayd kuwa naarta laga xoreeyay إن الذنب كررسة معها ولذلك بقى عائشة مركز تري إلهي رسولك يسيو هديبا إلهي هليشيا كبق مهبين كاسي ليلة القدر محان إلى هذا بيكو تري نبي يقول حولي واحد لها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني إله الذنب يقرقني إله يعفي حط كدو عيسى تهبين كاسي هنقطب النبي يقول عليه الصلاة والسلام إله يعفي bishatan cibaadaadka la sameeyo culimadu waxay yiraahdaan markaa cibaadooyinkeedu uma dhigmaan xataa cibaadooyinka bilaha kale la sameeyo walidaalka ba mesela nabigu wuxuu leeyahay cimrada la cimraysto ramadaan gudaheeda تعدل حجة وفي بعض الروايات حجة معي رمضان إن تسو عمريسته حج بيقولي أنت حق أجر كمرك الله يقول نبي المامية أما حق الدم بالدافك أما وينيده حج بيقولي أنت بالين روايتك قاركود بقولي بوح عليه حج النبي محمد لحجتي حج ودن ماها حج وداد يرى عضي ماها حج النبي محمد لسعوتي أيه ودي أنت هذا وحي لنا أيها الأحبة بشتني وبال وقفك مسلم كاهي تريننج كلا وكورس وقفك مسلم كي تدريب كقاطه تدريب كاسي كو وحصلينا يا إنه أسكا إسكا مايلو قال لماذا يو ذنوب تودمي ونجاسة القلب كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بإلهية المامي قلبي واحد حالي ما كانوا يكسبون أسكا جوردن إنه قفكو إسكا مايلو وهو حكوا هذا
وأمرك اللباد النار إنه كحروبه وأمرك الصدحات إنه أجر هله وأمرك الصدحات وبل وتغيير كبا صورة الجلي قفك مسلم كأنه نلشي سبدله حيابا بني آدم كوجوا هذا كأنه نلشي سكمل ده عنوين كمل ده عندا دي بالراري وقت قاعد وحوني شرتيه وقت قاعد سيحان شرتيه وحيونا بلا بدلي إذن هدي وحيابه فاست ككو هبل لبدلي كرو everything نلاش هذا كنت تعلقه وتبدلي كرته you can change بالود هالنقطة هذا حن هالنقطة دم هالنقطة وحكستو نلاش كنت تعلقه وحيد هذا علماء بشتاني وشهر للتغيير قبل جيد وسيستم كاغا نولا دو دنا ديبو هفتو بلان عسبين الدكتو سادو حروبي لهي إذا نفي الشيطان وقو حروبي لهي ولذلك با وحا لبدلي وقت قادو حونيسي وحا لبدلو لعديدي وقت يدي وحا لكردي وقت يدي عبادة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أعمال قارة جرتو بشر نوصي تلمامي وقوة وقوع علوس ترينك الوقو قاطف تريننا دا وقوع علوس كو دا يساقوا رمضان ووضا قرنا يدين للسومي وقرنا وحيابا وقوع علوس بشر لقبطو حكمي ده نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كلا دراسين جري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوحي دراسيان كتاب كالله إلهي هذا الكيس إذا بشت نبي علماء ضو يدهدان وابلو قفك مسلم كي أحد حده إنه كنت دبرو إلهي كتاب كي سو فهمه إلهي محو نلشا كرباه أنا صبايو وآخر وثيقة سمدك سودكته وبنادم لغو صحيه آخر هداية absolute value بنادم كان لوغو تلقى نولشي سودر إنه كبلان قريستو كورن مدحوينا ودن كان أما رئيس الوزراء ده ودن هذا وراق وصدر تمالون والبعض آخر ده لكن ولقى أنا تفهمين حلو ورنا يا قفت يرى خبل وحول ما ينبضوا كانسة وراق أديك الدنت هذا كهلسة وكوسو دكتور أو أدقى أنت كويسته وولي قاعد أخري سورة تفهميني إن القرآن ده فهمنا داية فاتح هذا إنه فهم وين ما له والبنات الضبي يطون شار آخرينه إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشوحو مدنان جارسين شري القرآن كي آخر سكيس القرآن كي يدرى زينتيس ولذلك بقى علماء دي وين إذا مسلمين تعركم دي حتى علوم تكلاي دي شرين ويشوجين شرين ركبت بقى علوم تكلاي دي كانوا دن إمام مالك ووسو حدن شري حديث كده بقى السودو ودقيو وهذا عم بشتان علماء بدن با علمي كالودن شوجين شرتي وحي ودن شري بشر وبشر قرآنك آخر سكيس بديان إمام الشافعي وحلقة شيء قاعد وحنا ننقو هويسنين إنه بشر لحدن شر قرآن كدمين شري صور نقليان إذا بشاني وحكوات إننا وحلقة يابا إمامك جس كتكيان لين هذا مساجد كسوة مساجد صلاة بدن هم حسن ما إياه جس قرآن وكتكيان وحلينا قربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين بالصلاة قالي دبتنا صحابي باوي ما وحشر اسكا حدا وكن دي النبي جبت كنيه واكو حدا دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام فاتح هذه مركو كبحيبه البقرة بلابا waxaan sidii buu yidhi kolley 100 aayadood meelahaas oo akhri doona waa dhaafi albaqro dhan buu dhameeyay buu yidhi walaa 186 aayadood wala wajisiya dheeraad albaqro dhan buu nabigu dhameeyay buu yidhi haddana albaqro marka uu dhameynayay ayaan sidii buu yidhi bas dabada haddu rukuuci doona suuratu nisaa buu bilaabay buu yidhi markaasuu iyana dhameeyay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasaan sidii buu yidhi hadduu iska rukuuci doonaa markaasuu aali cimraan dib ka bilaabay buu yidhi haddana suuratu aali cimraan buu dhameeyey waa 5 jis iyo dheeraad ayuu hal ragca akhrinaya intaa waxaa ka mudan waliba wuxuu leeyahay aayad cadaab muu soo marin ilaa ilaahay buu ka magan gelayay meel tasbiixa muu soo marin ilaa wuu tasbiixsan yacni quraan la leeyahay maahan quraan lagu tadabburayo la fahmayo wuxuu sheegayo laga jawaabayo waa
isagoo salaada ku jira markuu tasbiixaad iyo xamdalo soo maro uu tasbiixsanayay markuu soo maro cadaab iyo wax la mid ah uu ilaahay ka magan galay markuu nimco iyo janno iyo wax la mid ah soo maro uu rabbigii weydiisanayay hal ragco ku tukaday hal ragco ayuu shan jis iyo dheeraad akhrinaya xawaali idan nabigu calayhi salaatu wasalaam ramadaantii u dambeysay laba jeer buu la dhameeyey qur-aanka daraasadiisii uu la dhameeyey kuma malakul jibriil idan bisha tani waa biluu qofka muslimkii u xidhxidho warbal ilaahay warkiisa faham horta rabbi waxa uu kuu sheegayo rabu samaawaati walard ayaa adiga kula hadlaya bidaatik dadka qur-aanka markay akhrinayaan cid kale ka fakeraan cid kale ka fakerin adigunbaa ilaahay la hadlaya qof walba gaarkiisa loola hadlaya waxyaabaha bisha tan uu aadka u qaban jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam ama muslimiinta uu faray waxaa ka mid ah dee qiyaamu leylka taraawiixda salaada badan ee la tukanaya inaad salaadaha badsato waxyaabaha la isfaray waxaa ka mid ah bisha tan aadka loogu dadaalayo oo nabigu samayn jiray atasaduq sadaqaadka inaynu inagu wax cunaabaynu badinay inaynu dadka wax cunsiino sidaa awgeed ayuu saxaabigii muxuu lahaa nabigu wuxuu ahaa mid deeq badan dee asliyan baa nabiga caadadiisa waxayd weligii wax la weydiiyey maya ma odhan aduu bal qiyaas qof wax la weydiiyey aan maya odhanin weliba dadku isku mid maaha markaan dadkaba cidi kaa dhex aqoon aad meelahagaa iska joogto cidda kugu soo beegmaysay wax ku moodaysaa dee waa dad yar waa in yaroo qaraaba iyo laba saddexa saaxiib ahaydeen cid kale bay wax ku weydiinaysa laakiin ka waran haddaad dad madaxdood tahay oo weliba aanad askar iyo cid ku ilaalisa lahayn oo weliba hadduu madaxweynuhu 5 salaadood halkan inagula tukado oo cid dadka ka celinaysa aanay jirin imse qof baa wax weydiisan lahaa so qof waliba dantiisa kulama soo dhaqaaqaan isma yidhahdeen waa madaxweynihii ka waran hadduu rasuul ilaahay yahay rasuulkii ilaahay oo dadka dhex jooga oon meelna ku maqnayn oo 5 salaadood ba la arkayo oo haddana weligii wax la weydiiyey aan maya odhanin wax la weydiiyey aan qatu maya odhanin haddana isagoo sidaas noloshiisu ahayd ayaa la yidhi haddana ramadaan wa kaana ajwad mima yakuun wuxuu ahaan jiray fi ramadaan bisha ramadaan wuu ka deeq badnaa bilaha kaloo dhan baa la yidhahdaa intuu bishaa bixiyo way ka gadisnayd wax bixintiisu ka riixil mursala bay ahayd buu xadiidku tilmaamaya sidii dabayl dhabanaysa dabayl babanaysa ama dhabanaysa ayuu la mid ahaa yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisu way furray bisha tani waa bil markaa dadka muslimiinta ah takaaful ijtimaaci isu naxariistaan foqorada wax la siiyo masaakiinta wax la siiyo qaraabada la xidhiidhiyo tolka la xidhiidhiyo cid walba wax la siiyo waxyaabuu nabigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba kasii go-i jiray marka horeba bisha cibaada lagu jiray haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhaahda samayn jiray 10 maalmood 20 oo ictikaafa ictikaafku waa maxay waa inuu qofku masaajidka isku xareeyo aanu dib uga bixin ilaa lidaruura inuu ama musqultiga iyo ama cunno la siinayo wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin oo markaa masaajid gudihiisa maxaa laga qabanaya dadka badhba intay ictikaafka kusoo xaroodaan hurdo uun haddana hurdo looma soo xaroodo dad seexanaysa gurigaaga baad seexan lahayd waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximize gareeyo bishii waa sii dhammaanaysaaye 10ka dambe inaad goosato markaa the last days baad ku jirtaa 10ka maalmood ugu dambeeyana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray marka ictikaafku macnaheedu waa maxay xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegayay xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegay oo ajar ka weyn uu raadinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay ninku gabadhiisa markuu u tago hadduu xalaal ugu tago ajar baa loo qoraa siduu xadiidka nabigu ku sheegayay laakiin 10kan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaah yidhi haweenkana ha la dhaqmina idinkoo ictikaafsan baa la yidhi idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jaraya wuxuu u fasax qaadanayaa inuu umuurta aakhiro oo qura bishan ka shaqeeyo inuu 10kan maalmood umuurta aakhiro oo qura uu ka shaqeeyo
waxyaabaha bishan ku badnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa walidalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay fii wasati aayaati sawm waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyu'minuu bi aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhuna maanta aayaadka dambe ictikaafkii ka warramaya soonka aayaadkii soomka kalena waa ka horeeyaan idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka walidaalika baa culamadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay dacwadu baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda haddaba ayuha alaxiba ilaahay wuxuuna leeyahy waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumuu khayrun lakum in kuntum taclamuun adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumuu soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala haddaa wax garanaysaan haddaba ayuha alaxiba warkaygu wuxuu ku kooban yahay bisha tan soo socota in shaa allahu tacaala diyaargarowgeenu ha noqdo sidaynu ilaahay ugu noqon lahayn rabbi ugu xidhmi lahayn aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn janno ilaahay u weydiisan lahayn oo u geli lahayn bisha tani markaa ha noqoto daal badani waa inuu kaa muuqdaa oo ah fa idaa faragta fansab ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato laziness bil aynu qaadna maaha bil dadku caajiso waan soomanay qof walba idhaa nafta ka sii baxdo ee waa bil aad u baahantahay waa tababarbaad galaysaaye 11 biloodoo dambaad usii sahay qaadanaysaa 11 horena dembigoodaad iska maydhaysaa waa bil aad usii saha qaadanayso cafaariiddii waaweyneyd ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay si aad isaga celin lahayd haddaa trainingka ugu sii jirtaa ibliisaanu dibku ugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii idan haddaad bisha lafteedii dayacanto dee waad wada dayacmaysaa saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan usoo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yugfar lahu uu leeyahay afka ciidda ha daro nebi maxamedna waa aamiin leeyahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inta gaadha bisha tan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaata in rabbi inaga yeelo sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam alxamdu lilah rabbi العالمين